السلام عليكم. شيخ وانتي اللي ورن لهذا يسقى إنه يدين وضابة يحيد. على كل حال guurka iyo tirtirsiintiisu waa wax naftu iska jeceshayba marka hore oo iyadoo cunno lagu tirtirsiiyey wax cun haddii lagu idhaa ka war awal baad u heelanay guurkuna waa sidoo kale laakiin dhaqanka qofka muslimka ah guriguu ka muuqdaa umamkuna jiritaanka ummadeedna waa guryo laysu geegeeyey guryuhu hadday degan yihiin oo xasiloon yihiin oo ilaahay cabsidiisa ay ku maran tahay ummadoo dhan baa xasilaysa guryuhu hadday karayaanna waxay u badan tahay inaan dadkuna degin sideedabana bini aadamku xuquuq kuma wada socdo xuquuqda waa wax adag haddii lagu yidhaahdo xaqayga halkaa dhig adna xaqiisa halkaa dhig laba qofoo bini aadami waa adagta laakiin bini aadamku wuxuu ku wada socdaa in lays ixtiraamo laysu tanaasulo oo lays dhammaystiro oo dadku ay isdhammaystiraan sida daraaddeed xuquuqda qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay inta badan waa xuquuq si mutlaqa u warramaysa oo wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaahay leeyahy wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka waxa kula dhaqantaan baa ilaahay leeyahy macruuf wax curfiga ku fiican oo la garanayo sama kula dhaqma samahaasi wuu joogayaa xataa marka la kala tegaya baa ilaahay ku tilmaamay faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf baa la yidhi xataa haddaa kala teg gaadho waa in macruuf lagu kala tagaa marka asalku waa in macruufkaa lagu wada joogaa ninka iyo gabadha xuquuqda ka dhaxaysa badh waa xuquuq maadiya xuquuq maadiya maalan sadaaq baa kugu waajibay nafaqaa kugu waajibtay sakan baa kugu waajibay iyada furaash baa ku waajibay waxaasoo dhammi waa xuquuq maadiya waxna waa xuquuq ka gedisan maadada oo ah dhaqan iyo akhlaaq iyo bini aadamku siduu wada joogi karo bini aadamku wuxuu ku wada joogaa waa akhlaaqda markay dhalintu isguursanayso waxaan dhahaa qof waliba kreem buu ismariyaa labeentiisu sheega intaada jecjocornimadaa waad qarsataa un soo maaha cid kor u soo qaadoo tidhaahdaa iinahaana waan leeyahay ma jirto nin waliba fariidnimadiisa iyo inuu ragga ka laga qaata yahay buu sheegaa habluhuna sidoo kale laakiin marka guriga la tago real life baa la galaa nolosha dhabtaa kumaa tahay markaasaa la ogaanaya soomaalidu maxay ku mahmaahi jirtay jid ma la martay jidiin ma la cuntay jabad ma la degtay bay yidhaahdaan waa weedhi cumar laga soo naqlin jiray qofka waxaad baran kartaa bay yidhaahdaan marka aad safar wada gashaan idan isku kiin xidhee wax idinka dhexeeyaan ama markaa jabad wada degtaan bay yidhaahdaan markaa isku degaan noqotaan dee qofka dumara isku degaan baa noqoteen wal yar baa u wada hoyateen saa daraaddeed xuquuq badan badan baa laysku leeyahy ninkuna wacaashiruhunna bilmacruuf baa la yidhi iyadana waxaa la yidhi walahunna midlu aladii calayhinna bilmacruuf iyana inta lagu leeyahay in la midoo macruufa bay leedahay walilrijaali daraja baa markaa la tilmaamo ninku mid dheeraada buu leeyahay oo waa maxay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu aayaddaasi intay tilmaamayso rijaalku waxa ay dheer yihiin gabadhee quri waxa weeyaan marka guriga la joogo inay qiwaamatulbeyt leeyihiin guriga maamulkiisa inay leeyihiin waxaan idhaahdaa idaaradda reer galbeed iyo sida wax loo maamulo aad bay ugu guulaysteen meel qudha shirkad qudha bay diideen idaaraddeedii shirkaddaasina way ka burburtay galbeed oo dhan galbeedka marka nimankan reer galbeed ee culuumul idaara inoo soo waariday ee waxaan la daraaseeyey tirada badan la keenay
هدي شركات هدي دولة هدي مؤسسات هدي سيستم إداري هدي أورجانيزيشن سيستم إداري هذا في عم بيلاقينا هيراركي كلا كورية عندنا ما مشوا عندنا تحت كوتشرتو ودبتنا لك على دمبيو ميل بيديدين لك على دمبيو وغوريا غورو كلا سرين ما لها بين هذا إنك يا قبل وسكسمين دبتنا وبربرة شركة أن كلا سرين لها يعني ما صعدوا وحجري كرمها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي صدح قفداتنا ما لعد لا شوكتان أمير ياش هذا سفر كجرتان أمير سمايس تبعه بني آدم كهدو وذا النولي هيبة وين جرتا عد وحدارين يسا عد وحمامول يسا وين جرتا سناني ما جرتو لقى هاد لما يبني آدم لماذا ما كسي مني ها أدقى مدحوينه بني آدم لماذا ما كسي منتي لكن سلطو لي ديراده والله إجمدي إنه سلطة سهية قرية سلطة سوحي قعنته وجرتانينك هذا السلطة تمادنا مامل هدوي مادنا محكة واجبة طاعة مامل أن لا داعني مجلو دي اللي هذا الشركة النبا مامل لكن شغالوك يالي ما يش الشركة صعونيسا نغونيسا دي مامل يمادنا وإن طاعة تمادا سيدا وقيت بالقرآن كوحة المام يا رجالكو iyaga qiwaamatul bayt leh maamulka guriga iyaga leh dumarkana markaa waxa korkooda saaran taaca inay la yimaadaan tu nabigu alayhi salaatu wasalaam hadaan cid uun faraya inay cid u sujuudo gabadhaan odhan lahaa ninkaaga u sujuud macnaheedu waxa weeyaan inay taaca mutlaqa oo bil macruuf oo la timaado ayaa yana saaran haddii inaha la waayo in ninkuna dhaqan fiican guriga kula dhaqmo ودقق في عن إنه حاجة العكتم بينه كان نقانا إنك ريرك بيل في عن سيا وها في عن سيا وحين مودنا إنه ننفريد هي لكن ما دد وحكف في عن دقق كله وحلا لي وحي دينتو ينفرتي وحوه الرياء عدنا ودنوشين هدي حريستي هدي عافستي هدي وحد شريعته ينفرتي أخلاقياته meesha lagu mumaaraseeyo meesha lagu dhaqan galiyo waa guriga marka waxa habboon qofka muslimka ahi inuu gurigiisa dhaqanka ku yeesho ixtiraam laba qof oo is ixtiraamaya inay noqdaan laba qof oo hadal fiican ku wada hadlaya inay noqdaan laba qof oo haday wax isu sheegayaan si maangal ah iyo waqti ay suurtagal tahay isu sheegaya inay ahaadaan laba qof oo kala dambeyn leeyna ahaadaan laba qof oo isqadarinaya inay ahaadaan waxa la leeyahay waxa uu quraanku inoo tilmaamay ama xadiista nabiga alayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamtay ee dhaqan ee akhlaaqiyada waxa la rabaa cid aynu la noolahay inaynu kula dhaqanno waanagu waa adagtay ma fududa laakiin waxay u baahan tahay in la mumaaraseeyo waxay u baahan tahay in isku daygeenu bato idan ka warrami mayno xuquuqda maadiga ah inay meher kugu leedahay Soomaalidu meherka deedeen bay isaga haysataa oo ma bixiso iska kulliba la siin maayo sheeg bay yiraahdeen wadaadka kuma heri laakiin waa xoolo ay xaq u leedahay waliba waa xuquuq ay leedahay marka in la siiyo inkastoo inaga curfigeenu noqday gabadhan haddii la siiyo xaqeeda maalay moodo inaan guriga waxbaba ka oolin oo in la leeyahay waad iska sii tegaysaa laakiin xuquuqda maaliga hadday tahay sadaaqa iyo hadday tahay nafaqadii biilkii iyo hadday tahay sakankii iyo meeshii la degayey waa xuquuq maaliyo qofka lagu leeyahay iyo hadday tahay qismadii haddii ay jiraan zawjaadku wixii intaa ka soo hadhee maadada ka yimaada waa macruufka oo akhlaaq iyo dhaqan islaamiya in la yeesho waxaan rajaynayaa waqtigii mala salaada waa gaadhaysaa sheekh cali baana baabkan mala khabiir ku ah marka inta ka hadhay isagaan u daynaya wassalaamu calaykum